waxaa jira hoteelo dhowr ah oo aad u qurux badan kuwaasoo si joogta ugu faafaya baraha bulshada dhammaantoodna waxay u muuqdaan qaar ku yaala dalka China sida awgeed muuqaalkan waxaan booqanayaa 3 hodheel oo kala duwan oo ku yaala guud ahaan Shiinaha si aan u ogaado inay dhab ahaan ugu wanaagsan yihiin sida ay uga muuqdaan online-ka ama in dhammaanteen been laynoo sheegay hodheelka ugu horeeyana wuxuu ku yaala gobolka Yunnan sida la sheegay waa hodheel raaxo waxaan rajaynayaa inuu sidaa noqdo waxa la iga qaaday 329 pound si aan u dego hal habeen taas oo aad qaali ugu ah marka la joogo Shiinaha waxaan arkay boqolaal posti oo hodheelkan oo viral noqday iyadoo loo dhisay hodheelkan si uu la jaan qaado quruxda buuraha ku hareeraysan wuxuuna leeyahay view-ga ugu quruxda badan oo aan Instagram-kayga soo dhigay postigaas oo si weyn u faafay oo viral noqday taasoo muujinaysa sida uu khatarta u yahay hodheelkani laakiin ma qurux badan yahay markaad dhab ahaan u tagto waxaan soo gaadhay hodheelka Moye Snow Mountain Cliff Hotel. Hello, is anyone home? Waxaa la moodaabay inaan god ku jirno kani waa qolka loobiga. Whoa, please show your ID. Okay, thank you. Saaxiibayaal already view-yada iyo architecture-ka hodheelkani waxay u muuqdaan kuwa cajiib ah haddaba ka hor intaanan ku raaxaysan view-yada ama aan la isoo tusin qolka aan degi doono waxay u muuqdeen inay wax iga rabaan marka hore waxaan samaynaynaa muuqaal yar oo xayisiin ah waxaan rabnaa inaad nagu soo biirto oo nala duubto muuqaal xayisiin ah Me? Yeah, join us. Maybe. Being the businessman that I am, I asked what was in it for us. imise lacagna siinaysan weeye waxba waa bilaash markaa waa freemiya laakiin wax ma la nasiin karaa cunto bilaash oo kale cunto bilaash waan ku siin karnaa laakiin haddaba ka hor intaynaan samayn waxa ay naga dalbadeen waxay noo sameeyeen shaah casariya oo aanan ka filin wax badan inagoo xisaabta ku darsanayna inaynu China ku sugannahay waxay ku sameeyaan cunto Shiinaysa oo wanaagsan halkan laakiin ma hubo inay tani tahay takhasuskooda ma garanayo waxa meesha ka socday ilaa hadda makhaayaddan ayaan soo fadhiisanay imika A little platter of food. waxayna siiyeen bileedhkan yar ee cuntada ah waa burger yar oo calanka Shiinu ku dhex jiro ma garanayo waxa uu yahay waa blueberry muuqoodu maba xuma iyo sandwich yar oo ku dhex jira qayb yar oo aanan u malaynin inuu hilib yahay daacadii hodheelkan bilowga horeba kumaanu qancin adeegiisu wuxuu mid yar yaab leh saxankaygu xataa si fiican nadiif u muuhayn daaqada makhaayaduna aad bay wasakh u ahaayeen malaa waxa laga yaabaa inaan ku tarax tagay laakiin si aan u ogaado haddii 3 hodheel ay u wanaagsan yihiin sida ay uga muuqdaan internetka waxaan ka qiimeyn doonaa mid kasta dhowr meelood oo kala duwan kadibna waxaan siin doonaa iskoorka muhiimka ah ee expectation versus reality oo ah waxa loo malaynayay iyo xaqiiqada dhabta ah ee uu yahay kadibna haddaba waxay siiyeen qoraalkan aan ka eegayo photoshoot-ka aan la samaynayo laakiin ka hortaa waxaa lana soo tusay qolkayga This room, Oh, okay. Wow, thank you. maybe we don't have so many time. Okay, We what need to time? go 2:30 o'clock. Okay, I go up at 2:30. Just don't forget your time. Yeah, okay, thank you. ma garanayo laakiin siday macaamiisha ula dhaqmayaan waxbaa ka qaldan ma sheegi karaan cilladu dhanka luqadda tahay waa yareedib darro xataa albaabka isagoo ballaqan bay ka tegeen Wide open. ninkaasi haddana mar kale wuxuu igu soo laabtay 10 daqiiqo kadib si uu ii xasuusiyey sawir qaadista He's in the toilet. Please tell him we just have 12 minutes. Yeah, 12 minutes, we need to start our video. I know. So, yeah. dulqaadka wuu iga dhameeyeyba ninkan runtii maxaan u dareemayaa inaan qof shaqo u qabanayo oo aanan deganayn hodheel aan ka bixiyey £100 haddaba ka hor inta aanan idinkala tusin qolkayga 300 pound waxaa la gaadhay wakhtigaan bilaabi lahaa actingkaygii ugu horreeyey wow halkani waa cafe shop waa qurux daacaddii aad baan uga warwarsanaa photoshoot-ka manaan rabin inaan sameeyo laakiin waxaa la ii sheegay inaan gabadh la samaynayo I end up meeting another Chinese bad. You should know that. Drink tea. Okay. Oh. Okay. ma garanayo inaad weligaa la samaysay conversation fayga qof aadan la hadli karin aad bay u xanuun badan tahay runtii laakiin waxaan u malaynayay inaanay ku hadli karin kelmad ingiriisi ah markaa waxaan ku fikiray inaan fanis ka dhigo oo aan su'aal weydiiyo So, do you have a boyfriend? Nice to meet you. That tea looks very good. Very, very good. Cheers. waxaan u malaynayaa inaan ka soo dhalaalnay sawir qaadista casho bilaashaan helnay kadib waxaan go'aansanay inaan dhex marmarno hodheelka sidoo kale waxaan ka caawiyey wax yaroo nadiifin ah kadibna waxaan helay meeshan loo yaqaan the walk of death ama socodka dhimashada sida looma yaqaan waan iska hadlayaa laakiin sidaasaad dareemaysaa markaad meeshan fuusho ma samayn karaniyow ha ka baqan ku soco quraarad baa kaa hoosaysa maya ma samayn karo waa nin weyn waxa sidaa u dhaqmayaa waad aragtaan wuxuu ka baqayaa inuu ku dul socdo muraayad
si kastaba ha ahaatee markan waxay ahayd wakhtigii toorka qolka ee ugu muhiimsanaa waa kan qolka lacagta badan lanaga qaaday markaad soo gasho waxaa ku taalla masquul aan isticmaalay waxa kale uu leeyahay meel weyn oo la isku diyaariyo hair dryer burushyo caday oo dheeri ah qalab xiiritaan meesha qubayska oo daacaddii u muuqata mid aan raaxo lahayn waxaa sidoo kale ka maqan balaag kaasoo aad ugu wanaagsan qubayska dhowr jaakad qubays iyo tuwaalo qubayskuna u wanaagsanaa haddaan runta ka hadlo markan kreditka waxaan siinayaa meesha u qalanta qolalka hodheelkani aad bay qurux badan yihiin waxaan filayaa in lanaga wanaajiyey sawirqaadistii aan u samaynay darteed haddaad diyaar u tahay inaad bixiso lacag badan waxaa jira qolal cajiib ah oo uu leeyahay hodheelkani laga yaabaa inayna u wanaagsanayn siday u muuqdaan waxaan haysanaa hal sariir oo weyn iyo mid kale oo ka yara yar qaboojiye yar wax wanaagsan ma ku jiraan talow Bonbon. That looks like it could be a pineapple juice. This I think is beer, but I'm not too sure. wax cabashaa uma hayo fiyuga qolkayga waxaad ka arki kartaa doox halkaha hoose bal qiimee quruxdiisa sidoo kale waxaan qolkeena jiifka ka arki karnaa barkadda taasoo iyana cajiiba kadib waxaan ku raaxaystay buuggayga wax yar ka hor intaanan tegin si aan u soo eego qalabka hodheelka waxaa halkan yaalla miiska buulka iyo qalabkan yar tani waa mid ka mid a baaskiiladaha ugu la yaabka badan ee aan weligay arkay waa maxay fiyo aad wanaagsan oo jimicsiga ka hardhiyaa markaad samaynayso nicholas iyo anigu waxaan ciyaaraynaa geemka buulka Yeah. Stand back on it, ready? Easy, mate. kadib ciyaartii buulka ee ugu xumayd aan weligay arkay waanu gaajoonnay markaa waxaan tagnay hodheelka si aan u soo cunno cashadayada bilaashka ah Get that in your gob. It's not even spicy. I'll have another one. lama ogola is-eryashada iyo dagaalka Yeah, it's fine. hodheelkani runtii uu isii qancinayaaba uma xuma sidaan markii hore u malaynayey laakiin runtii lacagtaa badan in lagu bixiyo uma qalmo qaybta baraha bulshada ku faaftay waa kafee shoobka halkaana si bilaashaad ku tegi kartaa okay haddaba markan qolka waxaan siin doonaa 8 dhibcood way wanaagsanaayeen laakiin aad khatar umay ahayn adeegga markay noqotana waxaan ku qasbanahay inaan siiyo 6 ama 7 6 baan siinayaa waxaan u malaynayaa inuu 6 u qalmo marka la eego lacagta aan bixinayo adeeg uu ka hooseeyey okay qalabkana waxa meesha yaalay miiska buulka iyo sidoo kale waxa ku taalay barkad qalabka isagana waxaan siin doonaa 7 dhibcood kadibna cuntada shiineysku runtii way wanaagsanayd marka laga tago cuntada reer galbeedka oo aan wanaagsanayn waxaan ku qiimeyn doonaa cuntada 8 dhibcood kadibna filashada iyo xaqiiqada ama expectation versus reality waxaan u malaynayaa in meeshani ay u qalanto 7 dhibcood aad bay qurux badan tahay marka aad live u aragto fiyuga makhaayadda kafeegu waa wax kale waxay u eg tahay sida marka muuqaalada laga daawanayo waa isku midba ugu dambeyn waa hodheel wanaagsan laakiin weligii ma bixinayo lacagintaas leeg si aan halkan u joogo mar kale kadib haddaba waan hurdo tagnay anigoo xiisaynaya si aan u arko haddii hodheelka berri uu noqon doono mid cajiiba sida uu uga muuqdo internetka wakhtigeenni hodheelkii ugu horreeyey uu soo dhammaaday sidaa darteed waxaan u dhaqaaqnay garoonka diyaaradaha si aan ugu duulno Chongqing hodheelkan xiga ayaa sidoo kale soo jiitay dad badan oo internetka ka daawaday laakiin markaan soo gaadhnay waxay ahayd wakhti hore si aan isku diiwaan gelino sidaa darteed waxaan u baxnay si aan cunto u soo cunno waa cunto basbaas leh oo ay Chongqing caan ku tahay joogitaanka China haddaba waa mid aad la yaabayso sida dhaqankoodu uga duwan yahay ka UK oo aan anigu ka imid ugu horreyn waa noocyada cuntooyinka iyo sidoo kale waxyaabaha laga ogol yahay hodheelada halkan sida aad arki doontaan bal eeg wuxuu ku tufay dhulka waxaas waa wuxuu tufay taasi waa waali runtii sidoo kale wuxuu sigaar ku shiday gudaha weliba dhulku ku tuuray sigaarkii sidaad arkaysaan waxaan u malaynayaa inaan ooyayo aad bay u kulushahay cuntadani runtii saxbeel aan rajaynayn hodheelkan xiga uu leeyahay masquul wanaagsan qolka loo bigay hodheelkan wuxuu ku yaalay dabaqa 8 haddaba dabaqa 8 Hello. Hotel lobby. qolkan loo bigo waaba waali bal imika aynu eegna inaynu isdiiwaangelin karno hodheelka oo waxa yaalla iPad waa si wanaagsan waa inaan la hadlaa qof caadiya waxaan u malaynayay inaan la hadlayo qof caadiya Ni hao. Introduce for you our hotel service. Okay. And this is just for afternoon tea. Oh wow. magacaaga ii sheeg My name is Kang Kang. You Kang. can call me KK. KK. Oh, nice to meet you. saaxiibeel ilaa hadda hodheelkani si fiican ayuu noogu socdaa adeegga hodheelkani aad buu wanaagsan yahay gaar ahaan marka la barbar dhigo hoteelkii hore We just go for hot pot before. Oh. Yeah, very spicy. In Chongqing, mainly for the is spicy. Yeah. I think I'm crying. But it's also delicious.
Yes, delicious. How true? 好吃 How yes true? 好吃 Yeah, Yes, yes, how true? markan haddaba waxaan markii ugu horreysay arkayey oo lay tusayey qolka hodheelka inkastoo aan hore uga arkay sawirada laakiin marnaba diyaaru maan hayn inaan arko waxaan imkaan arkay oo kale waaw saaxiibayaal qolkan aynu soo galnay wuxuu leeyahayba swimming pool leer ku shaqaynaysaa tani waaba waali runtii tani xataa meel lagu qubaysta maba aha laguma meedhan karaba saaxiibayaal 5 sanay qaadanaysaa si biyaha loogu shubo ay u buuxsanto tan waan buuxin karnaa soo maaha biyaha waan ku shubi karnaa yeah. You want to put the water right now? Okay. intay qaadanaysaa 40 minutes. Oh, okay, yes. For you? Okay. haddaba kadib markii aanu isticmaalnay biyo lee kaydka biyaha u kaydsan tuulo yar ugu dambayn bahalkii lagu meedhanayay u buuxsamay wuxuuna muuqday mid aad u qurux badan haddaba ka hor intaanan dabaalan oo sidoo kale aanan ku ciyaarin qolkayga dhexdiisa aynu qolka soo dhex marmarno oo aan idinsoo kala tuso imika waa wakhtigaan qolka idinkala tusi lahaa halkan waa meesha maryaha la dhigto kuwan waa maryaha lagu meedho sliibariskan oo aan hadda xidhanahayba iyo weliba shandad yar oo aad kusoo dugaamaysan karto aad bay wanaagsan tahay runtii waaw sidoo kalena waxaynu halkan ku haysanaa iyar balaagis bilaasha Fuck, sorry. Oh no. Yes. aad baad nasiib badan tahay okay aan mar kale ku soo noqono halkan sidoo kale waxaan ku haysanaa sariirta oo iyaduna size aad u wanaagsan ah waxaan filayaa tan in size-ka super king uu yahay kadibna sariirta dhinaceeda screen kan yar ayaa ku yaala oo isna runtii aad u qurux badan laakiin waxaan filayaa inuu Chinese yahay No? ma fahmayo waan ka xumahay halkan yar waa halka soofada la fadhiisto fruitkan weelka ku jira bal ayna eegnayn khudaar dhab ay tahay haa waa khudaar dhaba halkan sarena projector baa ku yaala haddii aad arkayso waxaana filayaa in halkan screen uu ka soo baxo oo projectorka lagu qabto si loo daawado haddaba waxa igan tusaya waxa weeye barkada biyaha tani saaxiibayaal waa barkad caadiya maaha shower tani runtii aad bay la yaab u leedahay yaa marnaba ku fikirayay in barkad biyo oo lagu dabaasho qolka hodheelka dhexdiisa lagugu samaynayo yaa keenay talow fikradan waxaan malaynayaa waa qofkii hodheelka sameeyey laakiin tani waa waaliba runtii waaba wixii ugu waalnaa in arko hadda waxaan ku sugannahay dabaqa 11aad sidaa darteed fiyuguna aad buu wanaagsan yahay kanina sidoo kale waa samaacad buluutooda oo galaas ku dhex jirta saaxiibayaal hadda waxaan isku dayaya haddaba inaan ogaado inay fikrad xun tahay inaan ku boodo barkada iyo in kale waxaan filayaa fikradda ugu wanaagsan maaha meesha si aadaha iskugu soo tuurin Because you don't want to go through the floor. dive? Head first. Yeah. Well, if I dive head first, it'd probably be the safest, like not splash. Yeah, true. Is it deep enough? Yeah, for sure. Like, For sure, bro. This much. Ready? Yeah. Come on. waaw taasi way wanaagsanayd aad bay runtii wanaagsanayd waxaan filayaaba biyihii ugu yaraayee dhulka ku soo duulay inay ahaayeen saaxiib eeli badbaadiya waxaan idinka codsanayaa inaad subscribe tii saartaan sidoo kale halkaad naga daawanaysana hoos nagula wadaag Please. waxaan u maleeyay inaan isdhaawacay markaan dhulka isku tuuray Nice. The one bit of no water on it. kadibna saacadii xigay waxaan ku qaadanay qolkan mugdiga ah annagoo ku raaxaysanaynay fiiyada Chongqing xataa waxaan ku soo laabtay meeshii caanka ahayd ee aan hore ugula kulmay Michael kadibna fariin baan u diray si kastee ahaataba xilli dambe ayay noqonaysay hodheelka ayaana dib ugu noqonay si aan u daawano filim waa TV Chinese ah iyo sidoo kale Chinese Tom Jerry haa waxyaabo badan oo fiican kumay jirin TV-gan sidaa darteed waan iska seexanayba subaxii xiga haddaba waxaan kusoo toosnay iyadoo dibaddu ay ceeryaan tahay ninkii iyo aniguna waxaan u yara baxnay inaan soo yaro socsoconno halkaas aan kusoo aragnay nin sita garaambir ah balse waxaan noo qorshaysanayd inaan ka qayb galnay sbaaga hodheelka weliba sbaa caadiya muuhaynkani gudaha waxaa ku jiray nin af Chinese ugu qaylinayay oo aanan fahmin wuxuu lahaa waxaan isku dayay inuu noo sheegay inaanan gudaha ka soo geli karin 你好，先生，方便跟您沟通一下吗？因为我昨天我进来的时候为什么说不行？ Sorry, Austin. This is Austin. haddaba kan waxaa loo yaqaanaa storm room ama qolka duufaanta qolkan waa qol markaad ku jirto aad dareemayso inaad duufaan ku dhex jirto
biyo ayaa xagga sare ka soo daaya sidoo kale codna waa lagu daray waad ku raaxaysanaysaa runtii weliba markaad isku eegayso shaashadaha kugu hareeraysan aad bay qurux badan tahay runtii inkastoo muraayadaha resolutionkooda hooseeyey waxay ahayd inay 4K ka dhigaan laakiin hadda waa okay wax xabashaa uma hayo saaxiib yaal ninkii nagu qaylinayay uu tegey waynu ka guulaysanay sidee macquul tahay qof meesha soo booqday inaad ku qayliso aniga aad bii ku qaylinayay runtii waan ogahay kolley waxa uu sidaa u sameynayay waa arrimo dhaqanka khuseeya laakiin aad buu eedab darnaa nasiib xumo haddaba marka waxay ahayd wakhtigaan ka tegi lahayn hudheelkan waxyaabo badan oo xumaana oo aan ka sheego uma hayo haddaba ugu dambayn qolalka markay noqoto hudheelkan waxaan siiyey 9 runtii barkadu waxay ahayd mid aad qurux badan laakiin kolley waxbaa lagu yar qarinayay barkadan waayo maxaad uga baahantahay inaad barkad qolkaaga ku dhexaysato dhanka adeega haddaba markay noqoto hudheelkan waxaan siinayaa 10 runtii aad bay noogu wanaagsanayeen waxaanu haysanayba qof markaan doonno aanu maasiij u qori karno wax kastana aanu weydiin karnaa inkastoo luuqadda waana dhibaysay laakiin runtii aad bay wanaagsanayeen dhanka cuntada haddaba markay noqoto waxaanu siin doonaa runtii ma qiimayn kara cuntada waayo meeshan cuntaba kumaan cunin iyagu dambaynta ugu muhiimsan oo ah expectation facility waxaan dareemayaaba in hudheelkani ahaa sidii aan uga arkay baraha bulshada sidaa darteed waxaan siinaynaa 10 hudheelkan barkada sidaasaynu ku ansixinay intaa kadib haddaba waxaan haysanay dhowr saacadood si aan u soo dhex marmarno Chongqing markaa waxaan u dhaqaaqnay si aan u soo eegno dhanka gawaadhida xadhiga leh haddii aan idinla wadaagi lahaa hal shay oo aan ka bartay safarkayga Shiinaha ilaa haddana waa inaad badanaa iska sidato bahalada dhagaha la gashto si kastaba ahaatee iminka haddaba waxaynu sidaa ku aragnay 2 hotel oo China ku yaala taasoo la micnaayo inuu iminka inoo hadhay uun hal hotel sababta hudheelkan aan dib ugu dhigtayna waxay ahayd waayo hudheelkan ugu dambeeya waxa uu muuqdaa kan ugu fiican laakiin haddana wuxuunba igu leh hudheelkan wuxuu noqon doonaa mid aan u muuqan sida uu baraha bulshada uga muuqdo haddaba markaa waxaan raacnay diyaarad waxaanan u duulnay qayb kale oo Shiinaha ka tirsan saaxiib yaal kusoo dhawaada Guilin ninkaas gaadhigiisa muxuu la lugaynayaa tarow malaa waxa loo qaatay isagoo wada hotelkan waxaa lagu magacaabaa LS Hotel waxaanu ku yaalaa Liangshan kaas oo caan ku ah fiiyadiisa buuraleyda hudheelkan ilaa iminka waa ka ugu badan ee dadka ka soo jeetay baraha bulshada bal eeg inta like ee reelkan hudheelka ku saabsan uu helay sida iska cad dad badan ayaa raba inay halkan imaadaan laakiin hudheelkani ma u wanaagsan yahay sida uu uga muuqdo online-ka okayna Maria aynu ka soo jawaabnay su'aashaas Thank you, bye bye. Oh, thank you very much. Sorry, very heavy. LS Hote. haddaba aragtidii ugu horreysay hudheelkan waxay ahayd mid wanaagsan aan aragnay saaxiib yaal haddaba already markaan meesha arkay waxaan iska qiyaasi karaaba sababta dadku meeshan ay uga heleen amaba sidaas oo dhan ay ugu faaftay inay tahay landscape-ka iyo muuqaalada buuraleyda ah ee ku hareeraysan ka hor haddaba intaana soo eegin qolkayga waxbaanu cuni doonaa waxay nagu casuumeen shaax casariya biyuga eega bal saaxiibayaal aad buu qurux badan yahay runtii inuu xaqiiqo yahay maba moodid Oh, wow, what do we have here? haddaba waxaan ku raaxaysanay shaaxa casariyaha ee lanoo keenay kaasoo runtii ahaa mid wanaagsan waxaanan odhan karaaba uu ka wanaagsanaa kii hudheelkii hore You want any? kadibna waxaan go'aansanay inaanu soo eegno qaybta aadka uniga u ah ama gaarka ee hudheelkan ka hor intaanaanu soo eegin qolka ka dhigay hudheelkan mid viral oo faafay tani waa beerta hudheelka saaxiibayaal halkan bakaylayaal badan baa jooga saaxiibayaal bakaylaan yar baa ka mid ah weligii hore umaan arag bakaylo salad cunaya waxaa ku xiga waxyaaba beertan jooga saaxiibayaal waxaas kaloo ka mid ah waa riyahan iyo xuurtan fadlan ha taaban shimbirahan iyo riyahan waa yaro wasakh waxaa la moodaaba inaan joogo goob xayawaan waa yaro la yaab laakiin waan ka helay taasi waa maxay talow waxaan filayaa sawirada loogu talagalay hudheelkan wuxuu u ekaaba mid loogu talagalay in lagu qaado uun sawirada Instagram-ka la dhigo dabcan sidoo kale waxayna siinayaan 30 daqiiqo bilaasha oo sawiro lanaga qaadayo anigii saaxiibkay Nickna sawiro ayaan meeshan ku galnay I'm gonna see how high I can get St. Nicholas. Mate, this is record height here, I reckon. Fuck! Keep it going! sugbal guryahan yar maxaa loogu talagalay talow gudaha maxaa ku jira talow way maran tahay Brilliant. ilaa hadda haddaba hudheelkani waa hudheelkii ugu la yaabka badnaa ee 3 hudheel aan tagnay iminkana haddaba anigoo dareemayay inaan riyo ku suganahay waxaa la gaadhay waqtigii aynu sugaynay ee aan idinsoo kala tusi lahaa qolalka hudheelkani viralka noqday si aynu iskugu eegno inay u egyihiin marka ay baraha bulshada ka muuqdaan surwaalkaaga waan ka helay Nice, sparkly. Okay, thank you. Yeah. I feel so bad. She's carrying my bag. She won't let me take it. Oh. wow saaxiibayaal waxaynu daha ka feedaynaa viewgii ugu quruxda badnaa runtii aad buu qurux badan yahay
Yeah, this is. angalkani aad buu qurux badan yahay runtii way wanaagsan tahay dhar ahaan cabirkeedu Yeah, I think it'll be fine. It's definitely. Yeah, I mean, I knew I'd be fine. sariirtani waa wareeg sidaad arkaysaan firaashyo wareegsanna way saaran yihiin runtii sariirtan waxaa cajiibka ka dhigaya ma aha sida ay u wareegsan tahay laakiin waa qalabkan oo loogu talagalay inaad waxyaaba badan ku samayn karto waana idin tusi doonaa tusaalahaan kale waxaan rabaa inaan sariirta ku seexdo laakiin sidoo kale waxaan rabaa inaan viewgana arko iga dambeeya anigoo haddaba hal botan oo keliya taabanaya waan iswareejin karaa anigoo viewga ku jeedsanaya runtii waqti bay qaadanaysaa inaad wada wareegto waan yara cararsiin doonaa muuqaalka waayo waqtigaana ku dheeraanaya haddaynu sidaa sugno sidaasaad saaxiib baa la wareejinaysaa sidoo kale halkaygina waan ku noqon karaa waan isku wareejin karaa Which we're not gonna do. Why? So my hand's about to fall off. dabcan bahashan maadaama waqti badan wareegayso xalka ugu fudud waa inaynu inagu gacanteena ku wareejinaba waayo way ka degdeg badan tahay qolka markaad sidaa usoo gasho waxaad arkaysaa weelkan kale wareegsan waana meel lagu meedho laakiin halkan caadi baa lagaaga arkayaabe qof kasta halkaa maraya caadi buu ku arkayaa hadaas tiraa ku meedho sidoo kalena halkan saaxiib yeelo waxaa yaalla tv-ga ugu weyn aan weligii arko bal eega saaxiib yeel aad buu u weyn yahay saaxiib yeel sidaan hore idinku sheegay tan waa sariirta halkan botaniskan baa ku yaalla ma garanayo waxa loogu talagalay Chinese bay ku qoran yihiin hudheelkan wuxuu noqon karaa mid yara la yaab leh laakiin aad buu qurux badan yahay weligii ma arag viewgan oo kale halkan waxaa ku yaalla qolka fadhiga sidaad aragto saaxiibkay ninka baa ku raaxaysanaya fadhigan sidoo kale halkan talaagad yar baa inoo taalla The hell? waxaa ku jirta faanta shiinaysa sidoo kale sprite wuxuuba waa shiinays coca-cola shiinaysa xataa ku jira waa inaan tijaabiya cabitaankan waxaan u malaynayaa in coconut laga sameeyaa macaano eega bal saaxiib waa caanaan u malaynayaa Yeah, that's not coconut water. sidoo kalena balakoonkan ayaa ku yaalla dad badan oo i daawanaya waxaan malaynayaa inay hore u arkeen muuqaalada laga soo duubay hodheelkan oo faafay waxaan isku dayi doonaa muuqaallo viral noqday hodheelkan laga duubo baraha bulshada yaalla inaan dib u duubo si aan iskugu eegaysiin karo tusaale ahaan oo kale gabadhan baan muuqaalkeeda samayn doonaa iyadoo gacmeeda xagga dambe ku haysa ku bilowday kadibna toos bay halkan ugu socotay kadibna way orotay iyadoo gacmaha ka hortaagaysa saaxiib bal waxaan ilaabay inaan tuso qolka bathroomka laakiin waa shower keliya meeshan qasabada oo sidan u dhanaaqaysa weliga hore uma arag kadibna waxaanu halkan ku haysanaa suuli jabaaniisa waxaan filayaa waa wada jabaaniis waxani kadib haddaba waxaa la gaadhay waqtiga cashada markaa waxaan tagnay yang chow annagoo doonayna inaanu soo eegno cuntooyinkeeda gaarka kadib waanu yaro dhex marmarnay waxaanan markiiba indhaha ku dhufannay makhaayaddan oo haysay waxyaabaanu doonayno miniyuga cuntada waa kan maba akhrin karno ma akhrin kartaa saaxiib markaa saaxiib bel cuntada halkan aanu nimid waa kalluunkan inaanu cunno waa kalluun freesha oo hortaada lagu jarjarayo welibana lagu diyaarinayo You know them ones when they bring you out of four. So grateful. haddaba kadib maalin dhan oo aanan wax badan samayn waxa la soo gaadhay waqtigii aanu seexan lahayn subaxa markaanu soo kacnana 30 daqiiqo oo sawir qaadisa ayaanu samayn doonaa inaan hore u seexdaan doonaya oon hurdo fiican seexdo Alright, night, bro. Yeah, night, bro. See you. Sleep well. See ya. See you in the morning. saaxiib yaal haddaba waxa labaad ee sidoo kale ugu muhiimsan hodheelkani waa quraacda hodheelka Nuggets and fries. Pizza. Oh my god. One chicken burger left for me. ka hor haddaba intaanan ka tegin hodheelka iyo shiinahaba waxaa ugu dambeeyay aan sameynna waxay ahayd inaan sawirada iska qaadno saaxiib yaal ma garanayo in laga ogol yahay inaan baalkan xidhayin kale laakiin gabadhan bay sheegtay We have ethnic costumes here. Please see if you want to change them. Okay, thank you. It's crazy. Yeah? Oh, yeah. Yeah. I don't know if I'm allowed. Meow. Oh, like swag. Cold? Kind of okay. Ay, ay, ay. I like bitch who is your mess. Ay, can't keep my dick in my pants. Ay, my bitch don't love me no more. Ay, she kick me out on life, bro. Ay, that bitch don't wanna be friends. Ay, I give her this, she got mad. Ay, she put her 10 on my dick. Ay, look at my wrist about 10. Ay, just had a pound of the booth. Ay, but that shit straight to the booth. Ay, tell me my health figure foos. Ay, she said one fuck bitch I do. saaxiib yaal ma rabo inaan jaranjarada koro laakiin waan ku qasbanaa inaan sameeyo Are you
okay? Yeah, I'm okay. Yeah. Sit down? Yeah, okay. I was wet. Are you okay? saaxib yaal halkan loobigaan dhex marayaa maryaana xidhanayno waaba cajiib saaxib yaal haddaba markan waanu ka tegaynaa waa inaan hodheelka ugu dambeyn qiimaynaa qolalka waa inaan siiya saaxiibayaal 9 waayo qolalka aad bay wada wanaagsanaayeen adeegga waxaan siin doonaa 8 dhibcood runtii adeeggu aad buu wanaagsanaa si toosay dadku wax kugu qabanayeen aad bayna ku caawinayeen ogaa alaabta meesha taalla haddaba oo aynu ku darano bakhaylii riyihii shimbiri meesha yaalay iyo leexooyinkii iyo weliba inay ogolaadeen in kameramaankaygu si bilaasha meesha ugu seexdo oo mid ka mid a guryaha loo siiyo waxay ahayd mid aad u wanaagsan oo ay abaalay galeen alaabtan waxaan siin doonaa 8 cuntada iyada waxaan iska siin doonaa 5 runtii cuntada ma ahayn ta ugu wanaagsan cuntada jiniska xalay cunacaad bay iska fiicnayd laakiin cuntada kale waxay u agtay Japanese expectation versus reality-gana waxaan siin doonaa saaxiibayaal 9 runtii waxay la mid ahaayeenba sida loogu arkay bilaa bulshada saaxiib muuqaalka intaas ku eegay haddii aad halkan soo gaadhay subscribe to noo saar sidoo kale muuqaalkana like saara waa inoo muuqaalada xiga insha Allah aad baad mahadsantiin